بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ilaahay u mahadinaynaa ilaahay isku kaana keenay halkan annagoo ka hadlayno arrimo ku saabsan diinta islaamka weliba difaaceeda wixii yani khaladaad ah oo diinta lagu soo darayo ama baadil ah annagoo isu sheegayno marka aad ogtihiin diinta in loo soo maray halgan weyn iyo dhiig badan u soo daatay oo asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama ay u soo halgameen intii ka dambaysay qarni walba ummadda joogtaan sidaa oo kale yay waajib ugu tahay diinta inay u halgamaan oo difaaceed u taagnaadaan waa mida keliya oo ilaah subxaanahu wa tacaala uu noo abuuray waa inaan diintaasi noolaynaa marka anoo ka faa'iidaysanayo waqtigayga oo 10 daqiiqo ku kooban mawduucaygaan horey usii galayaa waxaan wax yar ka taabanayaa qolada hadda la taabtay oo qorsho aan isku imaanay shiicada afkaartooda oo ay aaminsan yihiin iyo waxay u qaybsamaan wax ka mid ah shiicada manaahijtooda waxaa u asal ah 3 firqo la yidhaahdo firqatu lghaaliya iyo firqatu sabaaba iyo firqatu lmufadila waxayna kala yihiin qolada koobaad oo la yidhaahdo haaliyada almu'allihan waa lagu magacaabaa tii ka ilaah dhigtay sayidana cali radia allahu canhu wa ardaah oo tii hadda sheekh ka dhawaajinayay ah anta ay yidhaahdeen qaali waxaa loo yidhin waxaa weeye way xadgudbeen oo sayidana cali ay ku xadgudbeen markay yidhaahdeen anta sayidina cali wuxuu yidhi man ana waxay yidhaahdeen anta allah adiga ilaah ah wasajaduu lahu walciyaadu billah waynu sujuudeen waa fikradii cabdillaahi ibnu saba soo aasaasay qaarkoodana waxay yidhaahdeen bianna jibriila qad akhta'a fi risaalati fanazala calaa muxammadin sala allahu calayhi wasalam badalan min an yanzila calaa caliyin ay yidhaahdeen waxyigii loo soo dhiibay jibriil waxaa loogu soo dhiibay yidhaahdeen inuu sayid cali ku dejiyo asaga yani la dabamaray maxamed ku dejiyey afkaartooday ka mid tahay oo ay aaminsan yihiin firqada labaad waxaa weeye sabaaba midii cayda badnayd aladiina yasubuuna wayashtumuuna sheekhayn waxay caynayaan oo aflagaadaynayaan shaykheenka sayidina abubakar iyo sayidina cumar radiallahu canhuma firqada saddexaad waxaa weeye mufadila la yidhaahdaa tii fadilaysay waxay fadilayaan sayidina cali radiallahu canhu wa ardaah shaykheenkay ka fadileen waxaa ka mid ah afkaartooda albadaa iyo wanisyaan cala allah caza wajal ilaah inuu fikir cad yani u soo daahirayo oo horay uusan u ogeyn wax uu horay ogaan uu halmaamayo ilaah subxaanahu wa tacaala tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxyaalaha uu marka ka dhaadhiciyey yay ka mid ahayd qolada aamintay qoolkiisii waxaa ka mid ah fikradooda inay aaminsan yihiin kitaabka qur-aanka in la taxriifiyo la bedelo oo waxna lagu siyaadiyo waxna laga nusqaamiyo waxaa ka mid ah marka taxriifkooda iyo waxyaalaha ay ziyaadiyeen aayad ay ku ziyaadiyeen suuratu linshiraax alam nashrax warafacnaa laka dikraka wajacalnaa caliyan sihraka aayadaasay ku ziyaadiyeen macada allah an yakuuna iddicaahum hada saxiix sheegashadooda sheegsha jisma ah kitaabka qur-aanka ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن أنا رسول دين أنا حفظنين زيادة نسمع من ماله وحكم إذا فكرته إلى أمن سنه التقية إسقارين تقية وحيد هذين أو قلت المامين أصلا من أصول الدين إنه كم يتعي وحيد هذين فمن تركها قف صلاة كتري أي لم يجهي قفكي تقية كتره تقية وحوية ده أكل وغشيره وحياله يعني الوصول دوليه أو يعني أفكار غير عادية أو قلبنا يعني أين جرين أو إسقارنا أيضا يعني أي هذين لا إيمان لمن لا تقية له إيمان مله قفكي أن تقية له وحكم إذا أفكار دولة المتعة نكاح المدة الله قبليه أو أي شيئين بأن متعة النساء خير العادات وأفضل القربات إن يتعي عادوين كو خير بدن وحيالا إلهي لو دوادو وحيالا أفضل بدن إن يكمل تعي وحيكو الشيئين كتاب كامل أو مصحف فاطمة ليلاده إنو الجلو يا شيئين كتاب كازنا كليني كتاب كيسي كافي ليلاده أيوه قصة قاضي وحيري وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام مركز سالي ويديو وحالي وما مصحف فاطمة وحيري مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات كتاب كيني القرآن كأه سدحجير قصة الله مهيو والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم هل حرف القرآن كنا كم دامكم يان سدحلان وكبدين وإياه مركز كتاب كاس سورة أولي أيو وحوان كعركي مدة اللي جوجو 20 سنة كهر يعني أركي كتاب الإثنى عشرية يا لهذا مركا وحاكو قرنات سورة لهذا سورة الولاية سورة السياسة وحي لك سورة البروج قدر كذا يا تمام حين قبل أمانيزي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالنبي الناصح والولي الشاهد الذين بعثناهما بلا سيك بلا منسي وعليهم لشاهدين القرآنيس أنا أخي سورتاس مركا وحاكم الله فكرة يا من سنين البراءة إلا قبل الله من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان 6 حضيب قبل الله أيوه يعني كل شيء أقبح الصفات صفات روح بطل ما وخيانة كم يتعي وحاكم الله إن زيارنا يعني نكي سيدنا عمر الدليل أو بابا شجاع الدين أيوب يقانان أو أبو لؤلؤة المجوسي لبيه أبو لؤلؤة المجوسي نكاس إن مركزي أي زيارنا يعني كلماتنا هكذا سنقصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته